السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما لقيت يوتيوب السلام عاشكن wuxuu ku saabsan yahay sida Windows 8 kan aan la soo degnay USB aan ugu shuban lahayn marka USB geena marka ugu shubano sida Windows aan ugu bedelay marka waxa tagtaa marka hore waxa fiirsaa USB ga aasaaska yahay iyo bina asaaska la soo degtay Windows ga noocu yahay haduu ka badan yahay Windows ga naaska ila marka aan fiirino size aan fiirino ISO ga la soo degnay marka waa 2.79 iska soo xir وانا فوديسا اقول له صدق المركه انا بلاونو 10 Welcome to my YouTube channel. marka barnaamij waa barnaamij free ah waa Rufus barnaamij free ah oo indhowyada dham lagu shubo USB way marka ku shubida dhimna qofka sa yaqaan browserkaaga fur kadibna Rufus soo degso kadibna linki ugu horeeya ayaa ku soo baxay ka dooro kadib marka ka dooratid scroll samee hoos soo deg kadibna laasiga soo degso markaas browserka uu tagno waxay tahay markaas version ugu dambeeyo waa in la soo degtaa waxa laga yaabaa inta versionku la bedelay version kale isticmaashid kadib open day kadibna yes marka waxa laga baahan yahay inaad fiirisid system failkaaga 32 computerka tag USB-C kadibna waxaad tagtaa USB kaaga right click ku dheh kadibna waxaad tagaysaa properties ayaad ka dooranaysaa kadibna wajida system failka waxa ku qoran TNFS iska soo xir 32 oo hala marka waxa la format marka ku sameynaysid waa in isla hada system failka wajida faadka ay saaran waxaan saarnaa NTFS kadibna USB ga waa ina hubiya USB ga sababtoo USB laba USB ay ku jiro marka kan ayaan hubiya 16 ka wajida kaas ay saaran kaasaan saarnaa marka hore hadii kale inaad ka soo hubisa muhiimada waxa mid kale laga yaabaa inaad tirtid computerka ku laabo USB-C kadibna waxa fiirisaa USB ga numberku yahay waa I kadibna meeshaas sida oo sax u hubisay kadibna waxaad tagaysaa browserkaaga tag kadibna waxaad soo qaadaa failkaagii ISO ga soo qaad kadib markaad soo qaadid waxa leedahay open ayaa leedahay marka hadda wuxuu diyaar u yahay inuu bilaawo si uu bilaawo marka hore waxa laga baahan yahay ku dhufatid start ku dhufo si uu bilaawo failka kadib wuxuu ku leeyahay ku soo saaray USB ga wixii ku jiro waa la tirtiraa diyaar ma u tahay in la tirtiro haddii diyaar u tahay waxa leedahay yes haddii kalena inta la tirtirin failasha kala bax meel kala dhigo marka hadda uu dhameeyay waqtiga soo gaabinay kale iska soo xir marka si aan u hubino in uu USB kan shaqeynayo waxa fiirisaa computer marka furno wajida USB uu shaqeynaa uu ku shubay laakiin inuu Windows ka shaqeynayo si ku ogaanina USB uu ku shubay soo jeegareeno fail aan la soo degnay ayaan soo hadda 10 hore aan sharxay oo hay mobile live in CD desktop kan soo dhigo wuxuu ku fiican Windows-yada iyo CD-yada iyo USB-yada lagu tijaabiyaa right click run administration open day kadibna waxa USB ga soo dooro kadib USB ga noocu yahay IY kadib yes dheh inta virtual machine ku soo saara no dheh kadibna wax yar kadib wuxuu sameynaa in uu USB ga inta ku tijaabiyo in uu Windows shaqeynayo haduu error ku soo qoro marka kuma shaqeynaa Windows waa ciladaysan yahay marka aan tifiirino oo jeeda Windows 8 ku soo bax marka insha Allah billahi kareem inaa ka faa'iideysan doonto ayaa rajaynaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا